dhexdooda waxaan dhihi lahaa dalka Maraykanka haddaad rabtid inaad jaajuus u noqoto bulshadaada muwaadiniinta Maraykanka jaajuusine waxaa jaajuustaa dalka Maraykanka amniga qaranka Maraykanka wuxuu dhibaato ku ah or jaajuus oo ay ka mid tahay dadka daroogada keenaya oo ay ka mid tahay dowladaha shisheeye faragelinaya dalka Maraykanka maartay dhibaatada u geysanaya muwaadiniintoodii doornaa isticmaalaya kuwa u shaqeeya haddaad rabtid inaad ka shaqaysid qodobkaas gabadha la yaab leh ayaa jirta oo reer Suuriya gabadhaasi waa gabadha muuqaalada ay duubtay hadeerta la soo wada daayay ee ku saabsan ninkii loo jeeday Bashar al-Assad muuqaalada gabadhaasi ay ka wada duubtay dhammaantood ee hadeerta la liigareeyay xaqiiqatan waa muuqaalo muujinaya inuu hogaamiye ah soo nin xun oo dhigacaba ma ahayn dhiigyacab kastaba ha ahaado laakiin inuu hogaamiye ayo waxyaalaha lagu gartay waxaa ka mid ah ruushka wuxuu arkayey dal aan la isku halleyn karayn wuxuu arkayey dal ay tahay keliya intay ayaamo iskaga difaacaan reer galbeedkana iska saaraan yacni Israa'iil wuxuu arkayey cadow soo jireen Maraykanka wuxuu arkayey in cadaawadda Suuriya iyo iyaga u dhaxaysa ay bilaabatay maalintii Suuriya xornimada qaadatay 1946 waxyaalaha muuqaalada laga duubay ayaa ka mid ah wuxuu arkayey dadka u shaqeeya wadamada shisheeye xitaa Turkigu ku jiro inay daba dhilif yihiin sababtoo ah wuxuu aaminsanaa in waddanka Suuriya la doonayo in la kala googooyo wuxuu arkayey in isagu loo arko qof dadkiisa dhibaateynaya laakiin isagu isu arko nin shisheeyaha dalkiisa ka celinaya dadku waxay doonaanba ha ka sheegeen intaas marka la qiimeeyo wuxuu ahaa hogaamiye dhiigi cabe qofku inuu hogaamiye noqday inuu dambiile noqdana waa laba arrimood oo kala duwan laba arrimood kala dambi inuu ku jiro oo dambi galo iyo inuu leadership lahaa waa kala duwan ninka hadeerta meesha qabsaday hogaamiyana maaha waana dilaa eeg fiiri hadalkeesi oo fiirso Bashar al-Assad maxaa kugu wuxuu ahaa hogaamiye dilaa ilaa cadaaladda yawm al-aakhira bay naga damaysa waxaan ugu baaray oo cadeeyay maaha wax jeebkayga wuxuu ahaa Bashar al-Assad nin leadership hadda ma aha hogaamiye noqday ma hogaamin buu lahaa calaamado hogaamiye ayuu lahaa dilaa jaxan uu ahaa oo dadkiisa u daran wayna jiraan dad badan oo hogaamiyaal adduunka soo maray oo wada dilayaalaha oo dhibaato badan geystay dheef badan lahaa marka waxa la dhihi karaa qof shar iyo khayr bare la dhihi karaa laakiin kan sharci la yiraahdo waa dilaa dadka Suuriyaanka loo soo adeegsaday oo argagixis ahaa oo dadkiisa afka soo duuban jiray oo qarxi jiray oo dilaa waliba fool xun ahaa hadeertana aan hogaamiye calaamad hogaamiye aan lahayn hal item oo calaamad hogaamiye ninkaas ma laha qofkii iisoo sheega hal calaamad oo hogaaminimo uu leeyahay baaritaan ku soo sameeya soo ogaad qodbadiisa u fiirso qodbadiisa oo dhan waa apologist waa apologetic yani dad buu soo salaaxaya dad buu raali gelinaya marka horta si soo darto hogaamiye dad shisheeya raali gelinaya sideedaba dad qof hogaamiye sheeganaya oo shisheeya raali gelinaya hogaamiye uu ka maray waa basaas waa calaamada basaaska lagu garto يعني قفك وإنه قفك إيه قفك نادر إنه ريالي جلسوا محاك وخصبين فيري أو ده يصب الصلاحية سبيشلي عدو جاك هذا وحيري إسرائيل وحلتك على مساء ضوحوا كير سبع حلتك على مساء يقولي داد ريراخرات أي لتك على مساء وحوكوا ريراخرات دادك سوريان كا بيدود كرالس حلي سوريا مركي قسك سوتشي سيتي سوريا وحكولتك على مساء داد ريراخرات macnaheedu marka waxa loo gartay inuu ka wado dadkii iska celi lahaa tay waxna waa dhamaadeen waxna waa carreen waddanka laga saaro ama dad uu isagu misqaxiyan u dilay buu leeyahay weeyo Suuriyaanku dad tanqanaya ma hadirtaan ana haysta meeshi idii tanqamin waxad una garaaca sadootan oo garaac oo noo dhibaatay oo noo duqay haweeney marka waxa jirtay la yaab lahayd oo loo jiray oo la taliye u ahayd ninkii loo jiray Bashar al-Assad oo loo jiray Luna al-Shibli ayaa markii gureysay waa naagta muuqaaladan tarbeelka duubtay ninkan Bashar al-Assad oo Suuriya habaaraya oo martay sheeg oo maagaya reer galbeedka oo Israa'iil maagaya oo aad u aflagadeynaya Putin oo le waa nin aan la isku halleyn karin runtii sidii weyn noqoto moogtay sidii weyn noqoto waxyaalaha hogaamiye inuu yaad ku garanaysid bay kamid qofka hogaamiye inuu qiyaasi karaa dal shisheeye isku ma halleyn Soomaalida inagu 20 years aan runaa inaynu ku tiirsanaano ciidamo shisheeye waa la gartaa ciidan ma dhisay oo qofku garan kara yiraahdo war wayaad arintan waan ka baxaa sideen macquul ma marka haweeneyda loo yaqaan Luna al-Shibli
baa iyadoo waxaa la yidhi 2019 sheekadu halka bay waatan iyadoo sheekadu iyada macaan hata 2019 ayaa waxaa soo galay qasriga madaxtooyada ee waddanka suuriya qaasim suleymaani oo uu la socdo madaxa amniga qaranka ee waddanka suuriya oo la yidhaahdo magaciisa la odhan jiray waagiis magaciisa cali mamluuq waa dhammaadkii 2019 alloore waa xiliyadii ay soo dhowaatay geeridiisu bishii janawari baa la dili doonaa kadibna gabadha ayaa salaantay oo iyadu kasii baxaysa xafiis kasii baxaysa luna al-shibli kadibna wuxuu ku yidhi waa tuma tani ma taqaanaa buu ku yidhi ma taqaanaa waxaa dhahaya qaasim suleymaani waa naagta xafiiska joogtay ya qof xafiiska jooga waddankaaga ka tirsan qof madaxa adoo la socda inaad ku tiraahdo tan ma taqaanaa macnaheedu ma taqaanaa waxa weeye anigu waan aqaanaa aniga ninkii sheeyaha baale qaasim suleymaani war tan ma taqaanaa buu ku yidhi cali mamluuk markaa sida wakaaladda wararka almajala oo warbixinta qortay ay sheegtay ma uusan fahmin hadalkii kadibna wuxuu u qaatay in uu leeyahay waa ayo tan qofkani muxuu ahaa macnaha waa maxay darajadiisu inuu isaga macluumaad ka rabo markaasuu yidhi waa la taliyaha madaxweynaha waxaa la yidhahdaa magaceeda luna al-shibli markaasuu war waan aqaanaa adigu ma taqaana markaasuu gartay marka inuu su-aal kale weydiiyey maxaad ka wada suu yidhi waa basaasad qaas suleymaani baa u sheegay wuxuu ku yidhi waa basaasad waxaan u shaqaysaa israa'iil iyo maraykan ayay u shaqaysaa heble in la dhahay waxaas dhan waa ogahay kadibna wuxuu siiyey faylkeedii oo dhan buu gacanta ka geli iiraan markaa ninkaas nin la araga maraykanka trump ninkaa markuu dilay marka laga hadlayo danaha maraykanka ee gobolka bariga dhexe uu ku saxsanaa fiiri maxaan ka wadaa uu ku saxsanaa waxaan ka wadaa in ninkaa la dilaa saxayd maya af soomaaliya wanaag faada mogta ku saxsan eg fiiri ninkaas oo kale oo dee asad ah maraykanka bariga dhexe oo dhan uu ka saari lahaa israa'iilla waxaa la leeyahay gebi ahaanba xamaas iyo ururka loo yaqaano xisbullah gantaaro iyo hub kimika buu gacanta u gelile yacni israa'iilla gobolka ma fadhideen haddii israa'iil maraykan laga saaro gobolkan waxaa wada qabsan lahaa jabhado iiraan taageero oo israa'iil la dagaalama la qabsan lahaa sidaa daraaddeed waxyaalaha maraykanku uusan ku kala hadhin wa qof maraykana oo ka soo horjeestay qaas suleymaani in la dilo ma jiro oo maaragtay oo siyaasi ah hal qof one single person hadda dadooyahan maraykanku ay leeyihiin daroogooyin bay sidaan qir bay marasaa meel xun bay xaaladii marasaa waa laga soo wada horjeedaa soomaalida la caayay waa laga soo wada horjeedaa wax badan oo maraykanku uu sameeyey waa laga soo wada horjeedaa diyaaradihii duqey jiray soomaaliya al-shabaab duqey jiray waa laga soo wada horjeeday qaar badan baa kasoo horjeeday yani oo lahaa dad shacabaa ku waxyeelooba iyo waxyaalo badan baa la sheegi jiray laakiin ninka in la dilay qof kasoo horjeeda ma jira yani wuxuu ahaa misqaxas guuraysa ayuu ahaa misqaxa guuraysa ayuu sidaa daraaddeedna waxa uu yidhi waan aqaanaa dabadeedna run baa loo qaatay hadalkiisii maxaa dhacay marka 2000 horta waxaa la yidhi si wacan run looguma qaadan baa la yidhi waa la daahiyey arrintiisii baaritaan dheeradaa lasii sameeyey kadibna waxaa la yidhi 2024 wax yaroon muddo 5 bilooda marka ay dowladdu dhici doonto ayay ogaadeen kooxdii suuriya haysatay bashaar al asad iyo dadkii maaragtay dadka inay laayaan kaliya ku mashquulsanaa haweenadaasi inay masiibo ahayd dabeedna bishii luuliyo 2024 ayaa gaari lagu dhuftay markii gaarigu shil yar oo gaari ayaa gashay dabadeedna markii gaariga dabcadina ka soo baxdo qof ayaa jidib xagga dama kaga dhuftay dabadeedna cusbitaalka la geeyey iyadoo la sheegay inay suxsan tahay 2 cusbitaal ayaa loo kala bedelay gaarigeeda markii la fiiriyey BMW-ga ahaa ee ku soconaysay iyo ilaaladeedaba midna waxba gaarin dabadeedna almajala waxay ku tilmaantay in ay muddo ku jirtay koomal ugu dambeyntiina la daad raaciyey oo aakhira loo diray si kastaba ha noqotay haweeneyda ayaa markii waxay ku dhimatay cusbitaalka al-shaami kadib markii laga soo saaray cusbitaalka al-sapura oo markii hore ay ku jirtay tani waxay muujinaysaa in suuriya ay ka dhacday wax aan hore loo arag oo la yaab leh ninkii loo yaqaanay markaasi hogaamiyaha waddanka Ukraine waxa uu leeyahay qodob wati horta Trump weerarka afka ku qaaday ninka Ukraine oo yiri ma uusan akhriyanba gabi ahaanba qodobadii ilaa hadeerta uu ka dooday Donald Trump ayaa ku tilmaamay ninkaasi inuusan hawa yaraatay uusan akhriyin waxyaalihii
ku doodayo ama waxyaalaha uu ku doodayo ee qodobada uu leeyahay waana laga aara. si kastaba ha noqotee madaxweynaha maamulkaasi Ukraine oo ka hadlay magaalada London ee dalka Britain oo uu kaga qaybgalayo shirweynaha wadamada Europeanka iyo wadankiisa ayaa sheegay inay xaqiiq tahay inuusan qodobada markii hore fiirin laakiin haddeerta uu fiirinayo. wuxuuna sheegay in qodobadu ay yihiin kuwo haddeerta naasilan, yacni in kuwo markaasi sahlan, sidaa daraaddeedna ay isticmaali doonaan qaar ka mid. wuxuu sheegay in 28 qodob 20 laga soo reebay, sidaa daraaddeedna ay tahay muhiim in la fahmo wixii soo hara. waxaana tani ay imaanaysaa iyadoo hogaamiyaasha reer Yurub ay mar kale hoosta ka xariiqeen sida aysan u doonaynin in Maraykanku uu u noqdo wadan dabxeer u noqda ama dambabasaa qaadashada marka la qaadanayo wadanka Ukraine. Maraykanka iyo Ruushka iyo wadamada reer Yurub ayaa qariiq isku ah. Maraykanka iyo madaxweyne Donald Trump waxay doonayaan in peace processka uu wado ninka loo yaqaano the peace envoy-ga bariga dhexe iyo Russia Steve Witkoff la sii wado. madaxweyne Donald Trump ayaana doonaya inay taasi muhiimad gaara ay u yeelato, hase yeeshee uma muuqato ayaa la yidhi haba yaraatee wax soo naascad waayada. dhinaca kale waa fiiriyo Maraykanka ayaa ogaaday in xaaladda wadamada u dhaxaysa Masar iyo Israel ay tahay mid farax laga qaadi markastana isku bedeli karto dagaal iyo colaad aad xooggan. sidaa daraaddeedna dowladda Maraykanka ayaa ka howlgashay, waxay ugu yeedhay joojinta iyo weliba ka howlgalka si degdega oo loo jooji doono ayay yidhaahdeen dhowr qorshe oo markaasi dagaal keeni kara oo dhinacyada u dhexeeya. waxay sheegtay dowladda Maraykanku in ay gebi ahaanba joojinayso halgan ay sheegtay inay ku jiraan labada dal oo isku dili karaan ilaa iyo sanadkii 2023 bartamihiisii. Netanyahu iyo ninka loo yaqaano Asiisi khadka telefoonka kumayna wada hadal inay saarkaan warkeeda badaan. waxaana wararku ay xaqiijiyeen in wargeyska loo yaqaano Access uu xigiraya saraakiil Maraykan ah in uu ogaaday in madaxweyne Donald Trump uu hadda ku qanacsan yahay in haddii labada dal aan ammaan ahaan la kala gaarin isku markaasi surbacaadi karaan oo ay qoorta isla geli karaan. dowladda dalka Masar ayaa sii wada dhismaha saldhigyo waaweyn oo ka dhisa deegaanka Al-Arish iyo deegaanada kale waqooyiga Sinai, halkaas oo loo arkay inay tahay dhismihii ciidan iyo imkaaniyaad military oo ugu ballaaran oo loo soo jiido tan iyo sanadka 1973 xilliga dagaalka October uu dhamaaday ama idlaaday. siday hadda wararku xaqiijinayaan wargeyska Access oo la hadlay saraakiil ayaa yidhi madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa doonaya in Netanyahu iyo Cabdulfataax Asiisi ay aqalka cad isugu yimaadaan islamarkaana la wada hadal siiyo. wargeyska ayaa sheegay in saraakiil Maraykan ay u xaqiijiyeen in Netanyahu iyo Al-Sisi ay diideen inay wada hadlaan, isla markaana uu Netanyahu uu gabi doonayay la hadalka Al-Sisi, laakiin Al-Sisi uu iska anfiyay kadib markuu ku tilmaamay ninkaasi inuu iska go'aansaday sii laynta dadka reer Falastiin. taasina ay keentay tani waa kansho aad iyo aad u xooggan in Israa'iil ay ka iibiso shidaalka Masar oo Masar ay ka iibso waa arrin aad u weyn. dhawaan ayay Israa'iil joojisay shidaalkii jeerdhaafka qiimaha jaban lagu siiyey Masar ay ka iibinaysay kadib markay sheegtay in ay ogaatay inay masaaridu ay ka baxayaan heshiiskii Camp David qarkana u saarayay. dowladda Masar ayaa doonaysa in gebi ahaanba arrintan ay gebi ahaanba ka dhigto qayla garaweysa. masaaridu waxay ogaatay xog hoose oo tibaaxaysa in Israa'iil waxyaalaha ay dabacsan tahay ay tahay in dadka reer Falastiin doonaya inay Rafax ka soo gudbaan aysan dib ugu soo noqonin hadhow dhulkoodii hooyo, iyo in la sii wado mabaadi' qorshayaal guracnaha oo ku saabsan sii waditaanka barakicinta dadka reer Falastiin. taa masaaridu waxay u aragtaa geeri iyo nolol arrin u dhaxaysa, sababtoo ah waxay ka wadaa haddii taasi ay dhacdo cidda kaliya ayaga ku soo xigaa ee noqon karta in la dhibaateeyo maaha cid kale waa uun ayaa la yidhi dadka reer markaasi Masar oo dhulkooda qaybo badan oo ka mid ah la qaato. taasi waxay ka dhigan tahay in ay sii soco karto baa la yidhi in labada dal ay maalin uun isfara saaraan. dowladda Israa'iil ayaa dhawaan dhinaca kale waxay ku eedeysay Masar in ay ilaa iyo 500 inta u dhaxaysa 850 diyaarado drones oo hubsida ku soo daadisay Gaza, kuwaasoo hubka iyo saanada siinayay ururka Hamas. ayna doonaysa weli in ay Hamas sii ahaato awood ay iskaga waabiso ama dabxeer kaga noqoto lacalla mustaqbalka Israa'iil ee dabaca weyn. tan iyo intii Netanyahu daboolka ka qaaday qorshaha loo yaqaano ama la yiraahdo markaasi Israa'iisha fidsan dhinac walba oo laga wado in dhinaca Sinai, dhinaca Urdun iyo dhinaca Golan Heights iyo waddanka Suuriya ay sii wado iyo dhinaca waliba Lebanon inay noqotay halis aad weyn. dhawaana Suuriya waxa ay sheegtay ninka markaasi kooxda Suuriya madaxda u ah ee waddankaasi loo dhiibtay ayaa sheegay inay Israa'iil ay ku tirtirsiinayso waddankiisa qabsashada qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda Dimashq oo ay doonayso inay buffer zone ka dhigato gaar ahaan buurta istiraatiijiga ah ee loo yaqaan Jabal Sheikh. Amanal.